السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين انت ماشي كوكولان سن مانتي نقول مثلا هي مناسبة قيمها هي قايها له دمانتين وايد السلام عليكم ورحمة الله. مانتي ومالين رنتي فرحت يغيرين له ومالين أن حوها سوقنا ندني منهجكي أساسي ها قرنك ومالين رنتي إن حفلدينه وأن فرحنا وأن سكوهم بلينه وأن سأمانه وأن سكو ما علينه واجب نقول نقطة ما أنت وحنور لما يسترمي سيدا أنت هذا الشيء هرولو شيئين وحا نو قنا ندمي ونصر لماذا قريتانكي منهج كبوغاكتي لقبر لها دوكسية السرع وإلهي مهديس دريق دير أيال الصومري ولو دريق دير وقتي قابن أو قوان لغو صومري waxaa suuro geliyay in waqti gaaban manhajka qarankoo dhan qoritaankiisii uu dhammaado laguna dhaqmay qaybtiisii hore dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe labadii sanad dugsiyeed ee soo dhaaftay sanad dugsiyeedkii 2018-19 qaybtiisii dambe waxaa noo suuro gashay in dugsiga hoose bugaagtoodii lagu dhaqmo sanadkii xigay oo hadda kii dhammaaday ah 2019-2020 iyadana waxaa suuro gashay oo ilaahay noo suuro geliyey in aan dugsiga dhexe isna uu soo dhammaado bugaagtiisii maantay waxaan u xafladaynaynaa in dugsiga sare quraankiisa oo dhammaaday sida ugu dhaqsaha badanna u aadi doono in la soo daabaco si loogu dhaqmo sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee sanad dugsiyeedka hadda fooda nagu soo haya haddaa fiirisid 2 sano wax dhiman ayaan intaa ku hirgashay su-aasha meesha ku jirto markii isweydiinta le waxa weeye sidee ay u suuro gashay arrintaas ilaahay mahadiis ilaaha suuro geliyey laakiin waxaa aasaas u ahaa oo saldhig u ahaa in ilaahay uu suuro geliyey in dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay iska kaashadeen sidii arrintan wax looga qaban lahaa loona suuro gelin lahaa in manhajka waxbarashada dalka uu soo dhammaado waqti gaaban dhinaca dowladda khaasatan bahda waxbarashada waxaa ku matalaya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dhinaca ganacsatada Soomaaliyeedna waxaa ku matalayay shirkadda Bedr iskaashigaas maanta wuxuu suuro geliyey in ubadkeena ay maanta haystaan buugaag aan shisheeye u soo qorin dhaqaale shisheeyena uusan gelin aqoon shisheeyena aysan gelin ee guud ahaan made in Somalia Soomaaliya maskaxdeeda dhaqaalaheeda waqtigeeda fikirkeeda ayaa waxaa lagu suuro geliyey in maantay manhajkii uu soo gunaanimo waxbarashada asaasiga dabcan manhajyo badan oo kala jiro muxuu ahaa oo weli lagu howleeyahay laakiin fasalka 1 ilaa fasalka 12aad hawsheedii waa soo gabagabowday taa macnaheedu ma aha in barkin la qaadan doono macnaheedu waxa waaye in lagu noqdo la ruugo la qurxiyo la turxaan bixiyo howl badan oo kale laga qabto laakiin asaaska si fiican noogu fadhiyaa ilaahay mahadiis waaye
iyo intii dadaal gashay arrintan inay suuro gasho oy taaba qaado iskaashiga keliya kuma filnayn waxay ku filnayd waxaa loo baahi qabay ilaahayna uu suuro geliyey in la helo oo maanta qaarkood goobta fadhiyaan aqoon-yahano Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan halkan anoo ku hadlayo magaca xukuumadda magaca wasaaradda iyo magaca dhammaan bahda waxbarashada meel kastay joogaan mid hore uga shaqeeyey mid hadda ka shaqeeyo anoo magacooda ku hadlayo waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo marka hore intii dadaal iyo fikir gelisay dad aan la soo koobi karin oo aqoon-yahanaa ayaa siyaabo kala duwan gacan uga geystay dhammaantood meel kastay joogaan waa u mahad celinaynaa anoo ku hadlayo magaca xukuumadda iyo bahda waxbarashada sidoo kale waxaan u mahad celinayaa in manhajka la mideeyo oo 47 manhaj oo maqrib maqshir laga kala keenay la mideeyo la isku raaco in hal manhaj aan intaan qoranno ubadkeenna ku barbaarino dadkii suuro geliyey ay ugu horeeyaan dalladaha waxbarashada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa iyagana sidoo kale dadkii abaabulay qorayaashii bugaagta kuwii ka saxay kuwii turxaan bixiyey kuwii fikirka iyo muxuu ahaa xeendaabka guud u qaabeeyey kuwii wasaaradda ka kaalmeeyey in bugaagtaas bugaag lagu dhaqmi kara ay yihiin intaas oo aqoon-yahana oo nooc walba leh waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ajri xasanaad allah idinka siiyo wax badan oo badan ayaad shacabkiina iyo ubadkiina iyo ummaddiina aad u gasheen marka ilaahay khayr adi siiyo annagana waxa keliyoon galno waxa weeye inaan idiin aragno waa mahadsantihiin waxaa intaan dheer kalkaaliyaal fara badan dadkii kombiyuutarada u hayay dadkii sugaya amnigooda markii ay hawshaas hayeen dadkii nadaafadda ugu dadaalayay dadkii raashinka u soo muxuu ahaa si ay hawshooda marna uga caajisin raashinka iyo shaaha iyo waxaa la daba taagnaa iyagana kaalin weyn ayaan u aqoonsannahay ugana mahad celinaynaa la'aantood hawshu inay jiitanto ayay khatar ugu jiri lahayd waxaan si gaara ugu mahad celinayaa shirkadda beder oo runtii dhibaato badan iyo juhdi badan gelisay dhibaato badanna kala kulantay in maanta meesha aan joogno manhajkeena uu soo gaaro dabcan shirkad aakhirka faa'iido doona waaye haddayba ka nabad gasho kuwa nabaddiidka muxuu ahaa hadda shalay booliiska iyagoo mahadsan ay soo qaqabteen iyagoo rabay inay muxuu ahaa waxa juhdigaas la geliyey inay si sahlan intay meel ula fadhiistaan iska daadaabacdaan shirkaddaas beder annagoo qirayno inaysan wax faa'iidaha weli aysan ka samaynin haddana dhiirida iyo fikirka dheer iyo wadaninimada iyo quuridda ay u quureen inay hantidooda geliyaan meheradda noocan oo kala oo ay qaateen inay khasaare qaataan ay door bideen inay khasaare qaataan intii waddanku uu lahaan lahaa 47 manhaj oo jaah iyo dariiq u diiday iyo horumar u diiday ummadda carruurta Soomaaliyeed si gaara waxaan ugu mahad celinayaa madaxa shirkaddaas cali muuse oo runtii aan isleeyahay
wuxuu ku mudan yahay bilad gaara hawshii oo ka qabtay dabcan asiga qudhiisaa bahda waxbarashada kasoo jeedo waana keentay in shirkad uu mas-uul ka yahay ay muxuu ahaa horseed u noqoto horumarinta iyo qaabeynta iyo qoritaanka bugaagta manhajka soomaaliyeed laga baranayo waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda iyo bahda waxbarashada dhammaanteed inaan xuso in manhajkan hadda maanta idin hor yaalla fasalka 9aad iyo fasalka 12aad inta u dhexayso in uu taariikh gaara uu leeyahay manhajkan khayr allah siiyo xukuumaddii militariga ee waddanka soo martay dad badanaa wax ka sheego oo dhaliilo badan u soo jeediyo laakiin annaga bahda waxbarashada haddaan nahay dhaliil dhinaca waxbarashada uma hayno maxaa yeelay in af soomaali lagu qoro aqoonta in bugaagta iyo manhajka lagu dejiya af soomaali militariga ayaa keenay militarigana waa u mahad celinaynaa bilowgaas ay bilaabeen annaguna howshoodii ayaan meeshii ka wadnaa si gaara waxaa xusid u mudan in xukuumaddaas howl qabyaa ay ka tagtay hawsha qabyada ay ka tagtay waxay ahayd wax badan ay qabteen waxay qabteen in af soomaali laga dhigo waxay qabteen in manhaj la dejiyo waxay qabteen in bugaag la daabaco fasalka 1 ilaa fasalka 8aad waxaa u dhimanaa inay dhammaystiraan waxayeen muqarar laga barto fasalka 9aad ilaa fasalka 12aad maanta intiina meesha fadhido ayaa ammaanteeda iskale in muqararkii ay ka tagtay xukuumaddii militariga ee fasalka 9aad fasalka 12aad aad suuro geliseen inaad dhammaystirtaan oo maantay bugaagta aad idin hor taallo ee aad soo gunaanudeen ay taariikhdaas gaarka ah ay leeyihiin waa ilaahay mahadiis inaa intaas inteena meesha maanta ku kulansan ay taariikhdaas aan maanta goobjoog ka nahay waxaan rabaa inaan anoo aqoonsan in howl kale oo badan sugayso marka laga hadlaayo manaahijta muxuu ahaa loo baahan yahay oo ay ka mid tahay muxuu ahaa early childhoodkii yani intaan iskuulka fasalka 1 la gaarin carruurta wixii si loo soo barbaarin lahaa manhajkeedii ayna sugayaan dugsiyada farsamada oo ayna sugayaan muxuu ahaa haddii ilaah yiraahdo muxuu ahaa dugsiyada dadka da'da waaweyn ayna sugayaan baahi gaara oo aan qabno oo ah carruurta weynaatay laakiin weligood iskool tegin manhaj gaarsiiyo carruurtii ay ku faca ahaayeen meeshay marayaan oo si gaara in loo qaabeeyo loo baahan yahay dariiq dheer oo kaleana sugaayo laakiin maantay waa maalin farxad leh haddaan soo xirnay waqtigaas gaaban gudaheeda waxbarashadii asaasiga ahayd manhajkeedii bugaagtii laga baran lahaa waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo runtii sahlay fasiliteed yani suuro geliyey in intaasoo howl ay isku xiranto si ay u miro dhasho oo miraha maanta aan arkayna ay waxaysmaan waxaan jecelahay inaan si gaara ugu mahad celiyo mas-uuliyiinta xukuumadda madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha oo wasaaraddan si aan kala go' lahayn oo aan muxuu ahaa shaki marnaba uu isku jirin u garab istaagay madaxweynaha bugaagta waxbuu ka qaybinayo markuu iskooladuu tagaayo asaga gacantiisa ku qaybinayo waa wax weyn oo lagu farxo in xukuumaddan mas-uuliyiintu u sarreyso
ay priority-ga mudnaanta koowaad ee waxbarashadu u leedahay dabcan mar walba waa in la yidhahdaa amniga ayaa mudnaanta iska leh laakiin ficilka muuqdo ayaa ku tusinayo in xukuumaddan mas-uuliyiinteedu ay ka go'an tahay in waxbarashada ay sare u qaado maxaa yeele xukuumaddeenu waxay aaminsan tahay in haddii waxbarashadu hagaagto waddankuna hagaagayo amni ma hagaagi karo haddaan waxbarashadu hagaagin marka in intaa ay u noqotay tilmaan iyo ficil ay ku shaqeeyaan aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa waxaana jecelahay anoo ku hadlaya magaciina inaan niraahno waa mudantihiin in laydiin mahad celiyo waana mahadsantihiin intaa mar haddaan iraahdo waxaan jecelahay in xafladiinu iyadoo socon doonto oo ilaa caawa ilaa berrito maalmahan dhan aan xafladayn doono waxaan jecelahay munaasabadii sida wanaagsan loo soo abaabulay oo aan u mahad celinayo intii soo abaabushay iyo intii isku keenna muxuu ahaa toosisay inaan maanta xuskan wanaagga badan aan qabanno anoo mahad celinayo waxaan jecelahay inaan shirkeennii aan halkaas ku soo xiro mar kale iyo mar kale dhammaantiin hambalyo 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 waana mahadsantiin wabillahi tawfiiq